حاجة مرة عندنا بيا خاصة عن غالي الله أنا غالي الله بقى صح وأنا نوص حصلت هاي أنا ما ضد مري walaalkayga Jilani Maxamed Xuseen oo soo gaarsiiyay منظمada Araka oo funaanadaha waqtiyada dhaxanta ah ugu deeqay walaalihiisa منظمada kaalmo caruurta agoonta ee joogta taasoo waqtigan aan joogno maanta ay tahay waqtigii dhaxanta iyo waqtigii qabowga saacadan joogna hadda waa 9kii subaxnimo cadceedii waa duhur hadana dhaxan baa jirta macdalika way dhaxmoonayaan marka Allah ka abar mariyaan lana walaalkay Jilani iyo walaalaha dadaalkan fiican soo qabtay taasoo ku soo hagaajiyay akaadimiyada i'daad al-qaada fi qarn Afriqiya akaadimiyada diyaarinta hogaamiyaasha mustaqbalka ee geeska Afrika marka insha Allah anaguna waxaan leenahay inaan soo gaarsiinay walaalahayaga iyo ciyaalkayga waqtiyadan dhaxanta ay jirto marka waxaan ugu baaqaynaa walaalahayaga baba muslimiinta ah khaas ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Awdal inay marka walaalahooga agoomaha ah ee masaakiinta ah waqtiyada ay dhaxantu jiraan inay soo caawiyaan ilaahina waa kula azza wa jalla wa ta'aawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan marka inaan isku wada qayb qaadano isaan walaalaheen waanu dhaxanta aanu uga dabooli lahayn waliba khaasatan ciyaalka agoomaha ah iyo masaakiinta gobolka ku nool iyo dhamaan caalamka oo dhanba marka taaban soo gaarsiinay ururka kaalmo idinka waxa la naga gudooman leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ku hadlaya afka ururka waxaan ka gudoonay 120 funaanadood oo dhaxanta ah iyadoo ay tahay waqtigii ay ugu xumayd dhaxanta oo caruurtu aanay tagi karaynin iskuuladii baanu ka gudoonay islaamka qarax iyo dhalinyarada iyada wanaagsan ee sharafka leh ehludiinka waanu ka gudoonay hay'addu ay soo gaarsiisay qarax baanu ka gudoonay iyo waxaanu sajeclay inaanay intaa ku koobnaan ee wixii kale ay u baahan yihiin waxyaabo badan bay u baahan yihiin waxay waagoon waa iska darayeysan yihiin dadka un bay hoos joogaan iyo ilaahay waxaan u baahanay inay waxyaabo kale iyo aradbeelkii kale inay ugu soo dadaalaan iyo anfacba wixii loo heli karo billahi tawfiiq waxaan ku hadlayaa magaca xarunta kaalmo ee agoomaha waxaan leeyahay hay'adda Arah deeqdan imika uun maahe markii horena u keentay alaabta u keentayna xoolo aad u fara badan oo ay wallahi jilaalkii kaga soo baxeen caruurtani waxaan leeyahay inaan kalkan noogu yimid Jilani iyo kuwa kale la midka ah meesha ay joogaan ka soo diraya harta ka soo tabay waqtigan ku jirno waqtigii dhaxantaana aad u darantay dhaxantu oo xilliga daruuro aan roob hayna dul joogto dhaxana waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka idin saaro halkii aad ka soo qaadeena ilaahay wax khayr qabo oo miisaan haydin dhigo aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waxaan baahidayadu deyntan maaha waa looga qof agoona oo daraysanay wax badan ayuu u baahan yahay raashin buu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay waxaan idinka rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaad inta iyo in ka badanba aad u qabanaysiin una soo xasuusanaysiin si isdaba jooga tii hore oo aan waqti badan ka soo wareegin waxqabadkii waan idinka mahad celinaynaa waxaanan leeyahay inta noo keentay wuu ka madax yahay Cabdiraxmaan Aadan wuu ku mahadsan yahay waad iyo aad baa ilaahay miisaanka xasanaadka idinku saaraan idinku abaal celinaynaa waxaanan ka rajaynaynaa ilaahay inaad inta ayaan ka badan baa soo tari kartaan waana idin mahad celinaynaa dhamaantiin intii noo keentay intii ku soo deeqday inta dambe niyada ku haysan agooma wax u tarto waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro wassalaamu alaykum insha Allah ta'ala u mahadsanyihiin markaysa mucaawinadan markaysa halkan laga furay aad iyo aad baa loogu mahadsan yahay ilaahay mahad ka gaadho iyagana markaysa ilaahay waxa ay bixiyeen wax ka weyn Allah siiyo insha Allah ta'ala aad buu wanaagsan yihiin barbaartaas oo koraysa ee agoomaha markaysa la soo caawiyay markaysa nimcadaas ee lagu soo caawiyay dhaxamaha looga soo caawiyay xilliga dhacaya waqtiga aan joogno saacaddu xilliga ay tahay duhur ku dhawaadkii ay tahay
haddana cadeedu ay saa u qabowdahay dhulku qabow uu taagan yahay iminka maadaama na soo caawiyeen aad u soo caawiyeen waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol baad mahadsantihiin waxaanu leenahay inta dadaalka aad noo soo garateen inaad soo kordhisaan baan iga codsaynaa insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayr baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullah